halkani waa Hirshabelle TV. waxaan leenahay war dagaalka la joojiyo dagaalkaas la joojiyo baaq nabadeedan u jeedinayna dadka walaalaha deegaankaas ku nool in colaadaas soo noqnoqotay si shuruud la'aan xabad lagu joojiyaan ugu baaqayna waxa kale oo rabaa halkaan inaan iyagana baaq nabadeed uga jeediyo waxa kale oo rabaa halkaan inaan baaq uga jeediyo dadka deegaanka ku nool Hirshabelle guud ahaan in loo istaago colaadan soo noqnoqotay ee ka soo noqnoqotay deegaanka hoostaga degmada Cadale in fadhiga laga kaco haday duubab tahay haday dhaqan tahay haday culimo u diin tahay haday ururada haweenka tahay iyo guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan culimo u diinka waxaan leenahay war loo istaago dhibaatadan waa dhibaato 20 iyo dhowr sano soo noqonaysay sidii lagu soo afjari lahay waxaan leenahay guud ahaan loo istaago ayaan leenahay dhiigaas walaalaha ee dadka walaalaha sida maaragtay qaldan ku daadanay dhiigoodu war dhamaan loo wada istaagan leenahay ummadda ku nool guud ahaan Hirshabelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe degmada Cadale ummadda maaragtay ka soo jeeda waxaan leenahay war fadhiga laga kaco si dhiigaas loo baajiyo ayaan leenahay waxa kale oo rabaa halkan inaan iyagana kala hadlo dadka siyaasiyiinta ee siyaasadeynayo dhibaatada ka taagan deegaankaas ee social media 24 saac isticmaalayo ee colaadii si hurinayo ee dabkii basiin ku shubayo ee dadkii si kala fogeynayo war waxaan leeyahay warnimayo ka aala dhibaatada dadka deegaanka yaan la siyaasadeynin hal maaragtay qaboojiyo gaar ahaan waxaan rabaa qolooyinka saxaafadda sida website-yada iyo telefishinada idaacadaha wala xadan hubin oo xaqiiq lahayn ee qof maaragtay wax siyaasadeynayso oo dana gaar leedahay dana gaar kale maaragtay arinta socoto ha qaadana ee wala xadan hubin ummadda ku kala fogeyne war waxaan leeyahay arinta iska hubiya waxaad qaadanaysiin ha ahaadaano wax biri hadii leedin weydiyo aad raad sax ka keeni kartiin oo dhihi kartiin waxaan cadeynahan haynaa wala dhihi kartiin ha naqdaano waxaan leenahay hal la hubiyo shakhsiyaad xumaan u samaysan ama shakhsiyaad dana gaar kale waray sheegeen yaan la qaadanine waxaad hubtiin ummadda u gudbiyaan leenahay saxaafaddu marna haday wanaaga ka shaqeysana wax badan ummadda isu soo dhawaanaysa qulubteeda hadii xumaan looga shaqeeyana xumaantu dadkay si kala fogeynaysa waxa kale oo rabaa guud ahaan dadka deegaanka inaan u cadeyno dhibaatada deegaankaas ka dhacday dad walaalaha laba beelo walaalaha oo deganaa dhibaatadaas u dhaxmartay Hirshabelle gacanta ay ka geysan kartay waxay ahaday midda wanaaga gogolan u dhignay jowhar muddo badan la wada joogay waa la isugu soo dhawaaday mid kale haddana dhigna degmada Cadale meel maaragtay wanaagsan la keenay haddana waxaan diyaar u nahay inaan sii wadno hadii Ilaahay raali ka noqdo dadka dhahayo Hirshabelle dhibaatada qayb ka ahayd war qayb kama nihin qof waliba waxay geysatana Allah ayaa kula xisaabtamay barito adduunkana markaatiya maaragtay loo baahan yahay aakhirana Allahn wax ka qarsoonayn ayaa qof waliba waxay geysatay haday xumaan tahay iyo haday wanaag tahayba Allah ayaa kula xisaabtamayo mas'uuliyiinta Hirshabelle gacanta ay ka geysatay waa la wada ogyahay wanaagay aheeday haddana waxaan diyaar u nahay habeen iyo maalin inaan ka shaqeyno wanaagaas iyo maaragtay sidii dhibaatadaas muddada dheer jiitamayso 20 iyo dhowr sano soo noqonaysay inay say ku dhamaalaheed waa naga go'an tahay hadii Ilaahay raali ka noqdo waa diyaarana u nahay habeen iyo maalin hadii Ilaahay raali ka noqdana diyaaran u nahay inaan gogol u dhigno la isugu yimaado khilaafkaana xal waara looga gaar hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa inaan ka codsado dawladda federaalka culayska meesha yaalo waa ka weyn yahay Hirshabelle waxaan ka rabnaa inay dawladda federaalka gacan naga siiso sidii khilaafkan iyo dhibaatadan muddada dheer soo jiitamaysay looga gaaro xal waaro sidaas aan rabnaa hadii Ilaahay raali ka noqdo walaalaha deegaanka waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celina war walaalaha tihiin meel ma kala tagaysiin abkaabaad isla soo jirteen haddana hadii Ilaahay raali ka noqdo waa isla jiraysiin maaragtay dhibaatada iyo dhiiga daadanayo hal joojiyo gogol nabadeedna hal isugu yimaado aad iyo aad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celinayna Hirshabelle diyaar waxay u tahay inay gogol u dhigto dadka walaalaha ee xal waara in laga gaaro dhibaatadii soo noqotay aad iyo aad u mahadsantiin gogashaasna meeshay ku habaanaataan ka dhigi doonaa haday degmo Cadale tahay haday degmo Jowhar tahay iyo meel kasta meeshay ku qaabsamaataan dhigi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh